xog leelay oo xasaasi ah ayaa sheegaysa in agaasimaha hay'adda nabadsuuda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Samad Maxamed Salaad uu wada kasto marayo sidoo uu la kulmi lahaa Korneyl Maxamed Aadan Koofi oo hadda ah xogayaha guud ee madasha samata bixinta oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta saameynta leh ee ka horjeeda nidaamka madaxweynaha Xasan Sheekh. Mahad wuxuu la xiriiray saaxiibada ugu dhawaa Koofi wuxuuna u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan kulanka isaga iyo Koofi xitaa ay ka ayaanlayaan qabsoomida kulankooda. Koofi waxa laga soo xigtay inuu yiri ma jirto sabab aan ula kulmi karo Mahad Salaad oo waxa uu ka shaqeynayo aan ahayn doonistiisa shakhsiga ah laakiin uu firinayo danaha qof kale. Dhinacyada xogta laga helay waxay xaqiijiyeen in Mahad Salaad aan wali ka quusan inuu la kulmo Koofi oo u marayo darafyo kale sida la soo wariyay. Mahad wuxuu dhawaan kulan guuldareystay oo la yeeshay siyaasiga saameynta badan ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hoygiisa ka dhacay. Fila Soomaaliya way Koofi u aragtaa maskaxda dhaqaajinaysa madasha samata bixinta waxaana guuldareystay wada kasta oo sahli lahayd in Koofi dambiyo aan lahayn lagu ogo laakiin uu ka dabaashay. Koofi marna waa Korneyl ciidan oo faham ku filan ka haysta siyaasadda iyo sida la isugu diro, marna waa aqoon-yahan gaaray darajada PhD waana adag tahay in laga hoos bixiyo isdiidooyinka ay leeyihiin dadka aadka u garanaya.